وبركاته. جمعة وناكسن سومالويني ميل با جوجتان. عشر كينا مانتا وحو كهدليا دقالها. دقالهم حينو كنقانا محو يهي دقالي siduu noo anfacaa siduu dhibaato noogu keenaa iyo maxaan uga baahannahay dhaqaale taasaynu baranaynaa cashirkeena maanta ah bismillaahi raxmaani raxiim economic ama dhaqaale sidaan ka warqabno jaamacadaha jira gaar oo xataa lagu barto dhaqaalaha adduunka waxa kala wada waa dhaqaale dowladaha waxa kala hormariyay waa dhaqaale dadka waxa kala hormariyay waa dhaqaale laakiin kulligood ma wada yaqaanaa ama kulligeen ma wada naqaanaa waay kusoo dhawaada casharkeena oo aad iyo aad u qiimo badan oo aan ka wada faa'iideysan doono. Economic is a study of a usage of resources, how we can make those resources valuable. It involves a study of production, distribution and consumption of goods and services. Economic is a study of a usage of resources, how we can make those resources valuable. It involves a study of production, distribution and consumption of goods and services. Kinds of economics: free market, command market, mixed market. Free market, command market and mixed market. dhaqaale waa barashada sida aad u isticmaali lahayd khayraadkaaga marka lagu dhaho define dhaqaale waa inaad barato sida aad khayraadkaad haysato u isticmaali lahayd qof ma tahay reer ma tahay shirkad ma tahay gobol ma tahay magaalo ma tahay dawlad ma tahay khayrka ilaahay ku siiyay oo ugu horeeyo caqligaaga caqligaaga cilmigaaga dadka kale waxaa ku dheer tahay ilaa ay ka gaarayso heer dawladeed oo ah khayraad ilaahay dhulka uu u geliyay iyo sida ugu samayn lahayd khayraadkaas qiimo sidaan ognahay innaga Afrika oo khayr ka buuxno qiimihiisana ma naqaano saa waxay maada dadkaas reer galbeedka ah oo gurta inagoo indheena furan oo nalooga dhigana in la caawinayo iyagoo iyaga is caawinayo inagina dilaya taas maxaa keentay barasho la'aanta aynaan aqoonin khayraadkeena iyo sida uu ku saameyn lahaa khayraadkaas ama aad ugu samayn lahayd khayraadkaas qiimo waxay kullig leedahay waxbarashadaasi wax soo saarka qaybinta iyo isticmaalka alaabta iyo adeega oo ah goods and services waa alaabta iyo adeega soo fududii marta dhaqaalahaba wixii markii la barto aad iyo aad u fudud yahay laakiin markaan la kasaynin buur waa ka weyn yahay noocyada dhaqaalaha suuq madax bannaan suuqa kala iibsiga iyo suuq isku dhafan suuqa madax bannaan muxuu yahay waa tan free market-ka ah oo airborada oo dhan ama mataarada ama ay tahay meelaha diyaaradaha ay ka baxaan oo kala degan ay ku yaalaan free market oo ah barafuunkii sigaarkii waxaas lagu iibsadaa saacadihii hadiyado kaasoo aan la bixin canshuur ama waxaa jira dekada kaleeto oo ah free market oo dibadda wixii laga keenayo la bacaynayo la soo gelinayo wadanka Dubai kala way leedahay Jabal Ali China laga keenaa ama inaga Soomaali horeen u sheegnay Malayga inagana laga qaadaa oo lagu qaadaa sicir aad u jaban ama sicir la'aanba way dawladda Imaaraadkeena ka xoog badan Jabal Ali keenaysa waxaa laga fiiqayaa warqadii Soomaaliya ku qorneed warqada Imaaraad ku qorantaa lagu qoraa leena wixii gudaha ku jira cid og ma leh tii Soomaaliya laga fiiqaata Imaaraad lagu sameynaa sicirkay rabaan ay saaranayaan taasi waa suuq madax bannaan waa markii Imaaraad lagu soo qorana canshuur ma leh
suuqa kala iibsiga muxuu yahay waa suuq aljumla ama suuqa la dhaho wholesale oo wixii lagu gadaayo isku dar qofaa markab keenaya waxaa la wareegaya dhowr bakhaar kaasi waa jumla bakhaarkaana wuxuu iibin karaa dukaamadii inuu u siiyo isagana sidoo kaleeto wholesale iyo inuu u qaybiyo oo uu retail oo kaleeto usii qaybiyo waa kan isku dhufanka oo ah isku darka ah marba markii lasii kala furfuro sicirka wuu sii kordhaa laakiin markii laisku iibiyo wuu ka raqiisan yahay leena waxbaad qaadanaysaa wax badanaad qaadanaysaa laakiin markaad dhowr xaba qaadanaysid sicirka wuu sii laba jibaarmaa sii saddex jibaarmaa warshadii waxay sii geynayay bakhaarka wuxuu sii geynaa dukaanka wuxuu sii geynaa magaalada kale tuulo kale ilaa uu sicirkii qofkii uu tagaayo isagoo 10 mar ama 20 mar iskor fuulay sicirkii oo kor u sii kacay marka waxaan niri dhaqaale waa isticmaalka khayraadka ilaahay ku siiyay oo ah caqligaaga cilmigaaga wax walba qof ahaan aad leedahay reer ahaan gobol ahaan degmo ahaan dawlad ahaan wadan ahaan iyo sida haadi khayraadkaas uu ilaahay ku siiyay aad qiimo ugu yeeli lahayd هذا علم قال إذا لو ذاقايو وخيرات ولله الحمد إلهي السي الحمد لله وأنا قص صدقي أنا نولي أنا ودي منبا أنا قول نولي أنا ميد بر إيه صدقة وخيرات كإلهي السي وأن قيمي وأن كل وذاقايو الحمد لله والحمد لله والحمد لله خيرات كي قفك هواي خيرات شركات خيرات مقالو خيرات دولة إلا وسدا خيرات أصيبته waxayna ku lag leedahay barashada wax soo saarka iyo qaybinta isticmaalka alaabta iyo adeega wixii waa soo saartay hadaadan aqoonin sidaad u qaybiso iyadan dhibaatadeeda kale leedahay wixii intuusa soo bixin waa inaad diyaarisaa sidii loo qaybin lahaa baabuurtii qaadi lahayd meelihii la geyn lahaa leeno dhaqaale isku wada mid maaha ama badeecada isku shay waxa jira markiiba halaabaya shay waxa jira maalmo oolaya shay waxa jira bilo oolaya hada hilibo kale khudaarto kale tii waa in saacada gudahooda la kala wareejiyaa hadii kale way halaabayaan dharo kale tii waxyaalaas kale bilo way isku ooli karaan marka intuu wixii ka soo bixin meeshii lagu sameynayay waa inaad qaybinti taqaana iyo cidii sii qaadan lahayd qofkan meequu qaadana dukaankan meequu qaadana bakhaarkan meequu qaadana kulli ay habaysan yihiin alaabtii iyo adeegii aad sameynaysay alaabtii oo ah tangible adeegina oo ah intangible alaabtii maxay tahay khudaartii hadda aan niri iyo hilibkii maadaama anaga wadan xoolo leh ilaahay dhulna sii beero iyo xoolihii wixii anaga waa alaab waa tangible waa shay la taaban karo intangible no waxaan la taaban karin marka alaabtaas oo kale to dhaxsay halaabaysaa hilibkii oo kale markuu neefki nool yahay cawskiisa la siinaa wana laakiin markuu neefki qalan yahay hilibku waxa rabaa dhaxsa inta laagad loo geliyo tuu ka soo baxay iyo takroo lagu wada waa inay waqti yar u dhaxaysaa hadii kale uu halaabaya khudaarta sidoo kale day noqoto yaanyo bataati basal degdeg waa in lagu kala wareejiyaa maalmo gudaheed hadii kale day ka sii badato leena wixii waxa la saaraya markab ama waxa la saaraa diyaarad ama waxa la saaraa min bakhaar li bakhaar taas kulli ma la dheereeyo kulli ma alaabta ay halaabayso marka waa in degdeg lagu kala baxshaa laakiin markay dhar tahay markay biro yihiin markay waxaas yihiin shamiinto tahay maraakiibaa la soo saara dhar bala iska soo soconaysaa marka maxaa niri suuq madax bannaan oo ah free market oo anaga dekada badanna aan leenahay oo aan filaa inay midna aysan lahayn laakiin insha Allah mustaqbalka la sameyn doono ee suuq kala iibsiya oo ah wholesale hadda China kale waxay tahay adduunka waxay u tahay free market keeda oo wax walba China laga keenaa dawladaha qaar intay keenaan dekadooda warqadii China ka qaadantooda ku qoraan iska dhiga markay soo gelinayaan inay iyaga sameeyeen hada imaaraadku kale soo qaadan tusaale waxayna inaga wadankeena ka soo qaaday raqiis ku soo qaadatay bay markay magaalada soo galiso ku gadaysaa inay iyada leedahay taas waa mid
teeda kale waxay China ka keentay bay Africa oo dhan u qaybisaa ka inuu ay iyada samayso kaleeto iyadoo shaqana ku lahayn taasna waa noocyada kala duwan ee suuqyada yaana sameeya qofkii yaqaana oo khayraadkiisa qiimaysta Soomaali waxaan dhahnaa ninkii saacada Saciid dib dhalay ninkan qiimaha khayraadkiisa aqoonino aday ku tala laakiin ninkii qiimaha khayraadkiisa yaqaana wuu qiimo saaranaya hatta qiimakiisa ka badan u saarana marka dhaqaale waa kaas dhaqaale waa barashada sida aad u isticmaali lahayd khayraadkaaga oo aad qiimana u saari lahayd khayraadkaaga kadibna wax soo saarkaaga aad u qaybin lahayd iyo isticmaalka adeega iyo alaabta haysatid ama adeegii alaabta aad adiga bixinaysid iyo adeega ama alaabta adiga aad soo qaadanaysid adigoo u maraya saddexdan suuq madax bannaan suuq kala iibsi ah iyo suuq isku darsan kii madax bannaanaa iyo kala iibsigii waxaan rajeynaa inaan ka wada faa'iidaysanay casharkan aniga ahaan alxamdulillah aadan uga faa'iidaystay runtii idinkan waxaan rajeynaa sidoo kaleeto jimco wanaagsan khayr badan aan idiin rajeynayaa aynu isqiimayno ilaahay qiimo weyna siiyey qof walbo khayraadka ilaahay ku sii qiimay leeno ilaahay waa ku qiimay adiga isqiimay alxamdulillah nicmadu ilaahayna siiyey oo ah caqligeena iyo dadnimadeena aynu qiimayno khayraadkaas ilaahayna siiyey walillaahi alxamd خير بدنا يدير جينا دمانتين جمعة وناكسن مركليتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته